Haweeney Sacuudiyaan ah oo la xanuunsaneyd xanuunka kansarka dhiigga ku dhaca ayaa shirkad waxay ka dalbatay gabar guriga kaga shaqeysa. Shirkaddii waxay u keentay gabar u dhalatay waddanka Indonesia. Gabadhii waxaa la keenay Sacuudiga, waxaana shaqo ay ka bilowday gudaha guriga ay ku nooleed haweeneydii xanuunsaneyd. Waa qof howlkara gabadha, balse ceebteeda ugu weyn waa inay ku laalaabato ama mar waliba ay gasho musqusha ama suuliga ayna ku soo daahdo. Haweeneydii ayaa gabadha weydiisay sababta ay suuliga mar waliba ay ugu soo daahdo. Gabadhii oo ka jawaabaysa ayaa waxay tiri, anigoo uur leh ayaan shaqada ka dalbaday shirkadda, waana ay ii keentay shirkadda shaqada. Shaqada waxaan sugayay muddo ku siman 7 bilood. Waxa ii soo baxday anigoo umula. Shaqada ma fasixi karin, waayo qoyskayga aniga ayay ugu tiirsan yihiin dhammaantooda. Sababtaas ayaana igu kaliftay inaan ka soo tago cunugayga waa shaqadan aan soo doorbido. Maadaama aan ahay qof cunugeeda muddo kooban ifku uu joogo, waxaa naaskayga ka buuxo caano. Waxaana galaa mar kasta musqusha si aan isaga lisa caanahaasi. Marka aan naasahayga aan ka lisaya caanaha, waan ogahay baahida cunugayga uu qabo. Xaqiiqdii aad ayaan u ilmeeyaa, waxaana dareemaa caanahaasi cunugayga inuu u baahan yahay, balse nasiib wanaag waxaan ku qubaa musqusha. Haweeneydii ayaa ku tiri, waan ku fasaxayaa, waxaan ku siinayaa mushaarka muddo ku siman 24 bil ee dalkaada ku laabo, cunugaagana soo nuuji muddo ku siman 2 sano. Shaqadaadana waa kuu diyaar oo waad ku soo laaban kartaa. Kadibna tigidh ayay u jartay, waxayna siisay mushaarkii ay qaadan lahayd 2 sano. Haweeneyda oo muddo isbuuc kasta aadi jirtay isbitaal si loola socdo heerka uu maraya kansarka dhiiggeeda ku faafayay ayaa waxay u tagtay dhakhtarkii. Waa la baaray inaysan kansar qabin ayaa jawaabtu ay noqotay. Baaritaankii ayaa lagu celiyay, negative ayaa mar kale u soo baxday. Haweeneydii ayaa la weydiiyey waxay samaysay, waxaana ay sheegtay in ay u nooleed sida ay u noolaan jirtay. Waxaa laga wareystay oo la weydiiyey falka wanaagsan ee maalmahan ay samaysay, waxaana ay ka sheekaysay isxaankii ay u gashay haweeneydii shaqaalaha u ahayd. Nebi Muxamed nabadgelye naxariis korkiisa Allaha yeele waxaa laga wariyey inuu yiri, sadaqada ku daweeya dadkiina xanuunsan. Qisadan cajiibka waxaa lagu daabacay wargeyska Al Riyadh ee ka soo baxa dalka Sacuudiga.